Shock waa argagax ama naxdin lama filaan ah oo ku timaadda qofka, taas oo hoos u ridda wareegga shaqada dhiigga. Sidaa darteed, shock wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo kala ah: shock soo degdega oo loo yaqaan early shock iyo shock soo daaha oo loo yaqaan late shock. Early shock waa shock soo degdega, waxaana loo yaqaannaa reversely shock, waana midka la wada weyn karo. Macnaha meesha waxaa ka wadiyaa shock-gan waa shock zaid ah oo khatar ah. Late shock waa shock soo daaha, waxaana loo yaqaannaa early shock. Shock-gan waa shock soo daaha, qofka khatar uma ahan. Qofka shock ku dhaca laakiinse muddo u qarsoonaa kabacdi wuu kusoo laba kacleeyaa. Waxyaabaha shock-ga keena waxaa ka mid ah dehydration, cadaadiska, accident shilalka, hemorrhage halbowlaha oo go'a, bones lafaha oo dhaawac soo gaara, fracture, iyo dhibaatooyinka kale ee jismiga. Clinical picture sawirku wuxuu kuu tilmaamayaa qof shoogay. Dhidid qabow ah marka qofka shoog waxaa ka imaanaya dhidid qabow ah, xis la'aan, qofka xiskiisa waa baxa, ogaalkiisa waa baxa, qof waxba weyn noqdaa. Dhimasho waxaa suurtagal ah qofka inuu dhinto. Garaaca wadnaha, macnaha xis la'aan marka uu leeyahay qofka waxaa waaye inuu miyir beelo, iyo dhimasho qofka inuu dhinto. Garaaca wadnaha garaaciisa oo kordha, indhaha oo taagan, macnaha qofka indhuhu taagan, indhihiisa bannaanka ka imaanayaan markuu shoogo. Tamar darri, qofka oo dhiiggiisa hoos u dhaca, tamar darro ay ku dhacdo. Intaas oo sabab. Gargaarka shock-ga qofka shoogsan waa in la jiifiyaa ama la fadhiisiyaa. Qofka shoogga hayo in la fariisiyo ama la jiifiyo si uu u dego. Qaarkiisa dambe laga saaraysiiyaa wax yar madaxiisa, macnaha madaxiisa dhulka la dhigaa, barkin waxaa la dhigaa, hoos waxaa laga geliyaa waxyaalo oo culus sida fuusto oo kale hoos laga geliyaa, si dhow la kala kormariyaa si dhiigga ugu horo maskaxda oo qofka maskaxdiisa ay u degto. Sidaan oo kale qofka shoogsan waa in la dadaa, laguna daraa baas buste ama
wax adag. Qofka waxaa loo baahan yahay in la huuriyo markuu shoogsan yahay si uu dhiiggiisu u shaqeeyo. Qofka shoogsan haddii uu yahay mid miyir qaba, waxaa la siiyaa cabitaan. Si uu dhiiggiisu u kordho, waxaa la siiyaa cabitaan. Qofka oo shoogsan cabitaan qabow waa la siiyaa ama mid kulul waa sii kartaa. Okay. Qofka shoogsan haddii uu yahay mid aan miyir qabin, jiifi oo madaxiisa u laab dhinaca qoorta, hana siin wax cunno ama cabitaan ah. Qof shoogsan waxba lama siiyo maxaa yeelay isagaa ku jiro marxalad adag. Haddii dhiig-bax jiro, jooji dhiigga baxa. Dhiig-baxa inaad joojisaa la rabo. Hadduu qof dhaawac soo gaaro lacala dhiig-bax oo hayo, dhiig-baxa waxaa la rabaa inaad ka joojisid. Raqamka lixaad, u samee bukaan weysitay meesha oo looga baahan yahay qofka. Marka shoogana marka saas waa la ogaado.